reer baa gurigu soo wareegayo gurigii markay gogladeen ayay ku tiri xaaskii in odaygeedii imaamka masaajidka inuu soo casuma ayuu duceeyay walkayga wadaadaduna hilibka iska jecelahay ninkii casuumadii ka soo qayb galay uu la afuray uu duceeyay uu iskaga tagay ilaa halkaas oo kama laba cisho markii ka soo wareegtay xaaskii waxay tiri wareebelow waynu dhacnay maxaa dhacay lacag $1 ayaa miiska saarneyd sheekhu markuu yimid mana hayne sheekhu uu la kacay ninkii walaa iska durufaysnaayo cashadii iyo $1,000 buu isku darsaday wadani Soomaha yar ninkii masaajidka odaygii sheekhu uu tagi karmaayo oran karmaayo tuugbat Soomaha wuxuu sameeyay masaajidkii buu jaray intuu hormaro ayuu masaajidka kale xaafadda halkaas ayuu ku soo tukadaa imaamkina kan ka arkaya maanu bisoo xagan maraya teeshan 6 bilood markuu arkay isagoo xagga u socda ayuu ninkii u yeeray wuxuu ku leeyahay kaalay dad isku wanaagsan baynu ahayn masaajidkan ku tukanaynay waadi casuntay waadi sooriyeysay wax walba inuu dhama waar tuugi hoon buu yiri aniga hayla hadlin war manikaan ku casumay $1,000 iga xaday sheekhi baa yaabay war goor ma ka xaday waar $1,000 miiskay saarnaydo waadigi la kacay gacanta ku sii qaatay aniga sidoo kale dhigin miskiin sheekhi baan naxay wuxuu ku yiri gurigiina gee maana guriga ku geeyaa $1,000 meesha yeelad xadaysa ma hayo buu ku yiri may wallahi waa idinka xayni waan dhaartay wiil guriga waynaan tagaa waxbaynu halka ku soo xaleeyna hadaba bal xaaskan u sheegay berito leh aynu haato xaaskii buu sheegay waar tuugayga daabay tiri iimaanka la ka qaad markii baad igu soo celinaysaa may maanta cunto karimayna bal weyn la hadlayaa wiili ninkii baa yimid kitaab quraana oo saaran halka yar shelfka maartay TV halka yaraynu miiskan intee sutuunka dhignay ku qurxino waa tan le khaanadaha leh khaanad quraan saaran ayuu soo saaray u kala furay كنكي باكو دخ جرا wuxuu yiri kama xumi dulmigaadii geysteen ayadaadi caydeen kama xumi waxaan ka xumahay waxaan sida kunka meesha ugu fiican ee lagu xifdiyay waa quraan dhixdii ugu rido bari markay quraanka subciskooda akhrisanayaan ay lacagtoodii heli laakiin 7 bilood baa ka soo wareegtay ramadaano waxaan aad uga xumahay inaydan kala furin kitaabka kala bixin qisada ma fahanteen ish ma'a al-Qur'an tana muhiima عيش مع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا قرآن كلا نولو أي مرض حفظيه يسد مرض دقيسان يسد هي مرض أخرية يسد تدقي ضد بضنبا كتاب كي الله سبحانه وتعالى كي يجرودي أون أخرين با كوين في عني رمضان إلى رمضان بيسوا رمضان إلى رمضان قصص نموذجية في هذا الاعتزاز إنه قفك دينتي سكفانو كل جنادو كو أتكاضو وكل انتو كل نولاضو قصوين تصير يو دليلها قصص كنا هذه شير وضرب من ضروب التربية حيابات دتك لغو ربي يوي ومركا عاد قفتون يسينات جهيسو عيد تصالة وابالات الماما أو كدايدو وحنا الله شيغا وحا ادو شيغيسا إنو واقع نولوليد كهير قلي وهانو هاي وحلا يابنا قصooyinka waxa hormuudi looga nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisa oo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka dadka loo akhriyo waliba habka loo daraasaynayo noqdo kayfiya fiha al-idaat wa ad-diras wa ad-durus fawaid wa ibar wa durus fiqiga siirada iyo wax laga fahmay marka dadka looga soo guro waa lagu jihayn karaa dhalinyarada iyo ummadda nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo cid badan aan haysanin oo rumaysay oo dadka bani la socdaan ayaa markii uu Maka ka soo baxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gaaladu waxay ku yiraahdeen waxaan iskaga had waalidkayagii iyo odayaashayadii iyo ummadayadii aad ka soo qaaday wax bila aqliya ilaahiyaashayadii waad la dagaalantay arrinka ka had markii lagu celceliyay waxay uu nabigu ka diiday adeerkii Abu Talib bay u tageen waxay dhaaheen inaan kan odayow dadka ka qabo dalkii iyo dadkiiba uu kala kiciyo waa ibtilaysan yahay inanku Muhammad buu ahaa waxba ku soo biiray dadka ka qabo nabiga kaleey salaatu wasalaam adeerkii uu la hadlay wuxuu adeer waa laga cabanayaa bal ka war hadaad wax ka yar dabciso ma yaabuu marka nabigu ictisaadka inmadeen uga jeednaa waad haday qoraxda midigtayda soo dhigaan bidixdana dayaxa soo dhigaan walla inaana ka tanaasulayn buu diintana wax kala sheeg halkaasay ka taagantay buu adeer halkaasay iga taagantay
كسعبوا لهذا أنا وأكو بربرتاجنا كل ده الدين تهذا ساوى أذكت هاي كم تدو كسعة أنا قلت ده وابان كأكتاجنا وحكم إذا أصحابتي هريرتاجنا بلال خباب بن الأرض عمار بن يسار سهيب الرومي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه ماذو والبا ولا قراعيا دغخ با dhabarka laga saaraya kuleylka lagu cadaabaya jirkiisa la gubaya mid waliba wuxuu isku dayaa qowlkiisa inuu adkaysto macna sharaftiisa wuxuu ka raadin macna waa i'tizaaz hatta ma'a al-istid'aaf hadii hatta lagu tunjilaacsado lagu garaaco lagu dhibo cisiga ha ka tagin ila dulli baad ku dhimanay asxaabta taariikhdooda akhri ay magacyadooda soo sheegay نبينا عليه الصلاة والسلام ودينا إنه عيسى كقاضي ودلية ضعيف نما كل إنتان صبر يا آل ياسر إن موعدكم الجنة إسكان صبر أبو الله رير على ياسره جنة ذا ينوب الله نه سيدي ببركة كل شهيدين عمار بن ياسر هو يدي أبيه وحكم إذا اعتساس كهذا أود لا أود هذا إن المنافقات كيل على سو يما ضحوت هوس dhigto iyadoo ilaahay ba ku ciseeyay Umar ibn Khattab Allah ka raalino markii Qudus la xoreeyay Shaam buu tagay markii uu sii galay asxaabigii ku soo dhaweeyay halkaas madaxda uga Abu Ubayda ayaa wuxuu leeyahay Umar baa waxa ku soo baxay meel dooxo biyo mareenaho intuu awrkii ka degay buu kabihii qaato oo la dhaxmaray marka wuxuu riday inaad sidan sameeyay nidaamka protocolaadka halka ka jira waa la isku yaabaa arintan inaad awrkaaga iyo gaadiidii wax ku dhaxmarto wax lagu qaaday taas oo kale sidoodii macnaha Umar ibn Khattab wuxuu wallahi kelmadda ciidana haynay inay oran lahayd ayaa aduu kii oran lahaa meehid erayga kama filayn erayga ayuu ku yiri asxaabigaas inagu waxa ilaahay nagu ciseeyay islaamka waxaan islaamka ahayn markaynu cisi ka raadinana ama gaadiid ama guriyo ama protocol ama dahab iyo xariir ama isdhalaalin markaynu cisi ka raadina ilaahay bayna duleynaya marka kalsoonideena islaamka aynu qabnaa ka dhicin buu leeyahay waxa kamida mowqif Ribci ibn Aamir markii dadka muslimiinta ay ku duuleen dawladii weyneyd reer Iran Persian reer Faris ayaa la isbari waayay ninkii madaxda ka ahaa ka Rustum ayaa wuxuu balaynu saragna carabtiina soo duushay waxa loo diray asxaabiga Ribci ibn Aamir ayaa loo diray waxa la bal ninka warka gaarsiiyo waxaynu doonayno Rustum buu u tagay markii la yiri wafti baa nimankii ka yimi waa la soo fadhiyaa isaguna col badan buu soo diyaarsaday muslimiintana col badan baa halka fadhiya waa la isku quusanaya marka wuxuu doonayaa inuu iska busteeyo iska muslaxo markii la yiri waftigaas soo socdo xariir si gogla oo inaga giijiya arintoo haybad iyo abha milkigeenu abhad iyo muuqaalku leeyahay muujiya saxaabigii isagoo dameerkiisii yara iska fuushan buu soo galay xariirtoodii buu iska soo jeeray meelihii ay gogleen mid kamida buu dameerkii yara ku xidhay uu ka soo degay isagoo warankiisii sito oo waliba aan xariirta ka ilaalinaynin kursigii loo dhigay wixii muu fadhiisanin ninkii boqorka halka hortiisu iska fadhiistay wuxuu maxaad u fuuli weyday meesha aanu ku diyaarinay kuraasta adeer anagu dhaldhalaalkiina ma qiimayna buu dhulkaanu iska aaminsanay bal ka socod waaye maxaad u socotay waxaan u soconay buuri inaanu adoomaha ka saarno is adoonsiga iyagu is adoonsanayaan oo ay sinmaana ilaahay adoomo wada noqdaan macnihiisii baanu turjumaynaa eraygiisa ji'na linukhrij alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa rabbi alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad dadku way sadoonsanayaan oo adiga dadka adoonsanaya qaar baa saa u qallafsanoo dhagax mooda ama toy bahalkan oo aan protocolka daraadii dhaqaaqaynin war dadkan sadoonsanaya inaan sadoonsiga ka saarno oo ilaahay u sinmaanay adoomo wada noqdaan baan u nimi iyo cadaalad darrada ay qawaaniintu leedahay inaanu ka saarno cadaaladda islaamka aanu u saarno iyo cidhiidhiga adduunyada iyo aakhiraba inaanu ka saarno ilaa sicati dunya wal aakhira
الدنيا ذا يا آخرة واسعني ماذا إلينا نوصارنا معانك نرشان السدابون هذا إلهي إنه حقي سلسية شرعنا حقي سأمدنا حقي ذا كورن بوري وإذا كان دقالك أوسعودين أنت إذا صدح ذا قارين بهذا دمته وكوت هذا لو دقال ما يساره بس إذا تانا بالله أنت إذا صدح ذا رمض حقي شنبا إسكان دمتان لما تشربون هذانو دماننا إلهي وحنا نويا بهايبوري كايجا لنتانا إنه جنة قلاه كايجا نولنا إنه النصر يعيسي هلا بس هذا صح واي هذا هدي أن الله سعتان أرنتا مركب وحنا الراعي وحنا كودين كرنا إن هذا ما إسلامته أما عشور بحسه أما الدجال ديارو نقط هذا يصدق حالات بلوان وكسر تشرينا وقت النسيب لبع عشان ويدسينا أو بدنا صدق عشاء ما ينك بدن بانوب بهالنيم أنا قوين كبدن وقت قعدت كمسينو النبي جيجا الله أقولانينو وسود ديار جروب إنسانه صدق لا عشان وكسيناي صدق لا عشان أنا قاعد دمارات قاعدين العيد كسو ويرينين صدق لا عشان صدق لا الرماد كوش شيء مثل لقاه له عشان أفرادنا haddaad mid keeni weydo weerarku waa diyaar ninkan sida kalsoonida loo u hadlayaa buu la yaabayo iyo ciisigiisa wuxuu yiri oo adigu macolka madaxdiisa ahayd ma askari caadi aan ahay wuli laakiin annagu wacad kaliya aan wada leenahay qowlka iyaguna uu midaysan yahay maganta iyadu way midaysan tahay qaraarka iyagu uu midaysan yahay haddaan muslimkanahay maganta uu bixiyo askarigu madaxdu kama bixi kartay bal waayo orod markuu dhaqaaqay uu doonay inuu maslaxada kuwii hareeraha fadhiyay nacamlayaashiisa iyo baarlamankii kacaankiisa ka dheereynaya horkacay markaas wuxuu warninkan waa aragteen qowlkiisa iyo kalsoonidiisa iyo balladaha adagu dhigayo maxay idin la tahay de waxay nala tahay bay yiraahdeen aan isku quusanno markuu arkay inay soo taagan yihiin ayuu waaye saddexdii cisho iska aamus colkii baa lagu soo eegeeyay waa la kala calaf qaaday halkaas ay ku duntay dawladii muddada dheer soo jirtay kubayaalka sano ee la oran jiray dawlatul furus ama bershiyanka la oran jiray halkaas ay ku baabaaday raga ciisiga leh libaxyada ciisigii ilaahay sita ayaa liqay oo miciyaha iyo ciidiyaha ku leefa يسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها ليسجل العلا قصصا هنا أحلام